maanta waxaa jooga librariga ugu weyn Turkiga iyo weliba bariga dhexe. Librarigan gudihiisa waxaa yaala 4 milyan oo buug iyo 120 article ee kala duwan. Hal mar si joogto ah waxa wax ku akhrisan kara 5,000 oo qof. Haddaba si aan wax badan u ogaadno gudaha librariga aan wada galnay ina keena mid ay hilmaamin inta soo gelin ka hor fadlan ha hilmaamin inaad like subscribe isaartid si aad u hilmaamin ama ku dhaafin muuqaalada soo gelina mahadsanidin. Iskariim Maxamed Saciid waxaan ahay arday dhigta mid ka mid ah jaamacadaha Ankara qaasatan jaamacadda Ankara Yildirim Bias University qaybteeda masterka runtii halkan waxaan u imaadaa inaan wax ku akhristo xilliyada aan firaaqada hayo si oo constant ah sidoo kale ardayda wax ka barata wadanka qaasatan Ankara waxaan tala ahaan u siin lahaa inay imaadaan ay ka faa'iideystaan waqtigooda ay geliyaan inay wax akhristaan ay imaadaan halkan runtii opportunity badan ay u tahay fursad aad u fiican inay imaadaan wax ku akhristaan ayuu ka heli karaan service aad u ballaaran sida nooyin iyo goobo wax ku akhristaan oo free ah marka ardayda dhammaan waxaan ilaa ka faa'iideysta imaada halkan si oo gacan u furan welcome. marka ugu horeysa xaqiiqdii meeshaan waa meel aad iyo aad u qurux badan gudaheeda decorationkeeda wixii dhan loo dhameeyay buugteeda loo dhameeyay buug aad u fara badan waa yeelaan 4 milyan oo buug ah taal meeshaan iyo 120 article saa hore ugu soo xusay meeshaan taal dhammaan ardayda meel walba ka imaadaan haddii ajnabi yihiin haddii turki yihiin dhammaan ardayda iyo qof walba wax akhriska jecel meeshaan waa u furan tahay 24 saac wuu imaan karaa waxna wuu ku akhrisan karaa kaliya intaas akhriska kaliya ma meeshaan wax walba oo lagu cunaay ama lagu cabay waa free cabitaanka biyaha caadiga kafeega dalkuna mashaarida shaaha wax cunada caadiga wax waa free floor dhan oo waxa floor kaliya xad cunada bas loogu tarka in dadku ku cunaan meesha hoosna waxaa loo sameeyay shurbada iyo biyaha waxyaabo degdeg ay u baahan yihiin dalkuna inay ku cunaan mid kale meeshaan floor walbana wuxuu leeyahay meel gooni wax lagu akhristo group wax ku akhrisan karaan shakhsi wax ku akhrisan kara meel walba waa loo sameeyay qayb walba waxyaabaha dalkuna meeshaan ugu yaa badan aad i soo jiitay waxay tahay hadana floor walba inuu dalkuna qofka uu leeyahay suuligiisa uu leeyahay oo meel kale u aadi karo meel yar u aadi karin uu joogo dadka meeshaan wax akhris ku imaado waxaa kamid ah Soomaali wiil Soomaali xataa ayaa kamid ah inaan meeshaan ku arkan aad u helay iyagu wax akhrisana waan soo qasay waan soo wareystay marka meeshaan xaqiiqdii aniga aad u helay inay maxaa la jiray wax walba meeshaan yaalan ay free yihiin xilli walbana ay furan tahay xilli walbana dalkuna qofka uu cunno heli kara ama cabitaan heli kara in case of emergency maxaa la jiray wax uu heli kara uuna wax akhrisan kara amnina ay tahay madaxtooyada qasriga Turkiga ee ku dhex taal anaga wadankeena madaxtooyada qof inuu galo wax ku soo akhriso wax ku soo cabo iska dhaaf xataa si nabad xataa ku hormara iyo xaqiiqda nasiib leeyahay waa ogtiin xataa inay xildhibaanadina xataa madaxtooyada inay galaan xataa aad u adag tahay maanta dhan kaarkooda ee dalkooda ay taaganaan qoriga askari uu qori ku soo taagay dib badan tahay meeshaan qof walba soo kaarka tusay iska socodla wax xataa dhibaato ay mid ku bilaa xilli walbana furan xilli walba wax ku akhrisana meeshaan waxaan inaan la hadla rabaa ama la daaran rabaa fariin u diraa ardayda Soomaaliyeed maxaa la jiray Turkiga ku nool qaasatan Ankara ku nool intay kaslaa iyo meelaha kafe iska taagnaan lahaayeen inay inta imaadaan waxna dalkuna ay ku akhrisaan masaajidkoona ku dhex yaala iska soo tukadaan haday shaahay wax u baahdana ay meeshaan iska soo cabaan marka dhammaantiin waxa waa fiidiyogan share gareeya soo dadka dalkuna inta jooga meeshaan ogeyn oo dalkuna u gaara meesha ugu dambeysana saa ku imaan lahayd waxa dhan dalkuna hay fiidiyogan hoos linkiga soo dhigi doonaa aan meeshaas information badan ka daalan kartaa aad u mahadsantahay fadlan hayman inaad follow soo dhex mahadsanidin subscribe isaartiin sorry Instagram ka aan la qabsaday YouTube ka ku cusbahay marka waa mahadsantihiin